السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحن إن شاء الله تعالى ما أنت أن أفردنا إن كهذا الله موضوع وآد أكلل ونعلس عليس كوغانا له لبدا موضوع وحوي يميد وحكساب سنيهي خلاف كاسور دحمري labada hoggaan ee ugu sarreeya Soomaalida oo kala ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wixii uu khilaafkaasi ka curtay uu ka dhashay oo ku saabsanaa wakaaladda NISA ee sirdoonka wakaaladda u qaabilsan sirdoonista iyo sirraadinta Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. waxaa kaleeto oo ka hadli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo tabaaraka wa tacaala warka ku saabsan gobolka galbeedka city dagaaladii ka dhacay iyo nataa'ijtii dhalatay iyo dowrka iyo mowqifka xukuumadda Ethiopia annaka oo si guud arrintaas u eegi doona hadduu ilaahay yidhaahdo tabaaraka wa tacaala. waxaan insha allahu tacaala jeclahay inta aanan mawduuca aan si cumqi ah aan iskugu dayin inaan u galo inaan arrimo laba ah tilmaam aan ka sii bixiyo oo ay noogu noqoto araar iyo hordhac. arrinta koowaad waxa weeye waxa aan samaynayno waxay leedahay wax loo yaqaano qiraa'a siyaasiya amba waxa loo yaqaano akhris siyaasadeed. akhrista siyaasadeed waxa ay leedahay saddex arrimood oo in lagu eego had iyo jeer la isku dayo. arrinta koowaad waxa weeye hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan isku dayaynaa inaan dabagal ku samayno dhacdooyinkii dhacay si aan kadib dhacdooyinka dhacay aan u ogaan karno siday u dhaceen sida ay yihiin iyadoo oonan caatifadeenna aan ka ilaashanayno. arrinta koowaadi waa taas weeye. arrinta labaad waxaan isku dayaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo wixii la sheegay ee jawaanibta kala duwan laga sheegay inaan ku samayno waxa loo yaqaano taxliil siyaasiya, inaan analysis saarno oon arrintaas taxliilino oon dabagurno iyaan iyadana ku dadaalnaa hadduu ilaahay yidhaahdo tabaaraka wa tacaala. arrinta saddexaad waxaan kadib markaan labadaa aan samayno waxaan isku dayaynaa in aan ra'yi siyaasiya sheegno amba fikrad inaan soo gudbino sida in la yeelo ay tahay iyada oon ka dhaqaaqayno labadii arrimood ee hore een soo tilmaamay oo ahayd dabagal rasdul macluumaat informationkii in la rasdiyo la dabagalo la dabaguro iyo macluumaadkii oo la furfuro oo analysis la saaro oo la taxliiliyo. labadaas marka la isku geeyo baan ka soo saaraynaa ra'yi iyo fikrad siyaasadeed oon u gudbinayno dadka ishaye ee kala duwan dhakan iyo dhaka kaleetaba. arrintaasi waa arrinta koowaad weeyaan. arrinta labaad oon rabo inaan akhrista ku samayno waxa weeye waxaan ku furannay ayado qur'aana oo suuratu arraxmaan ah. suuratu arraxmaan bilowgeega ilaahay wuxuu tilmaamay 4 arrimood ood isleedahay muslimiintu hadday fahmaan nolosha way la falgeli lahaayeen sida ugu wanaagsan ee nolol loola falgalo. arrinta koowaad ilaahay wuxuu yidhi waxaan nii soo dejinnay qur'aan yacni marjic reference iyo kitaab manhaj isbuuxinaya dheeli tiran baahida bini aadanka jawaabihii loo baahnaa ka bixinaya. markaa buu ilaahay ku xidhay arrinta barashada iyo naxariista. wuxuu yidhi arraxmaan callama alqur'aan. marka qur'aanka haddii la baran waayo oo la ruugi waayo oo la baari waayo wax la gaari karaa iska yar. arrintaasi waxay ku xidhan tahay waa arrin muhiim ah weeye. arrinta labaadi waxa weeye oon suuratu raxmaan aan u soo qaadanay ilaahay wuxuu ku xigsiiyey khalaqa alinsaan insaanku ama qofka bini aadamkii
واللاعبك أساسي نولشا كونك أردن الدون كان أن كنا الله وحا لفدبر كأ أو قفك مخلوق أهم مهمسا وقفك بني آدم كأوي إلهي يقول خلق الإنسان إنسان كان أبو ريب إلهي يعني وحا لقرب دقى إنسان كقرآنك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان مركا إنسان كسيجارة أيا الله حسي سورة الرحمن أرنتاسي وحي كتوسيسا إلهي مؤرن خلق الحيوان إلهي مؤرن خلق الخلق إلهي مدين خلق الكون إلهي وحول إنسان مركا إنسان كإن لحصو وحي كده أنت قفك مخلوق قورة دولك دول جوغا كونك جوغا قرر يا مسير كيسا يا مسير كمخلوقات ككريت أردن إلهي كبعدي وإنسان كوي مركا إنسان كو وخطر وانا عظيم لبدا ووستا ومدي لبا أفلوي وسيف لبا أفلوي إلهي مركو خصو بحي خلق الإنسان أرين لباد بو ماشا صور دقو علمه البيان إلهي بني آدم كوحو باري سيدا وحلو عبرو وحا قلبيسا إيا لابتيسا إيا مانكيسا كمقان وحو بدلي كرا أراه ما أركتي قفك بني آدم كأ الرواية قرية رواية وحوية بوك كغشا كاريا قصة داس أو نقون كرتمركا قاركود لباتن صدن مجلد أو لغسو كوبا يقصد إنسان كأردن wuxuu u bedelay taariikhdii bini aadanka ah saas u bedelay insaanku waa mucjizo weeyaan bayaan buu ilaahay inuu wax caddeeyo ilaahay baray asraartan qarsoon ee adduunkan aan ku noolahay ku qarsoon makhluuqa uumaha qura ee awood u leh inuu ka soo siibo oo dadka wax u macneeyo waa insaanka weeyaan marka insaankan asraartan adduunka ka jirta waxa maraykan uu ku maqan waxa ruush ku maqan waxa dabagalay waa insaan weeye arintan ka dhacday maaragtay gabadhan ikraam iyo nisa iyo maxaan ku dhahdaa rooble iyo madaxweyne farmaajo iyo dadka kaleete ee ku meersan in aan caddayno ilaahay kartibu inoo siiyadaan bini aadan nahay markaan iska dhaafno caatifada iyo cayida iyo sheekada iyo la jirka iyo ka jirka iyo ujirka markaan iska dayno wayaan khalaqa alinsaan علمه البيان أرنت صدحات إياب كلا وحويان إخواني في الله وأرنت أرنت أفراد بنو جيدا سورة الرحمن أنو أغفري وحوية وإسكإلالنت وحا الله يقانو حد قدبك إيا قابنت ووحا إلهي القرآن كويري سورة أن هيسرنو ووضع الميزان إلهي ميزان بودغي الله تضغوا في الميزان ولا تقصروا في الميزان لبدي ما والله كان إن الميزان كحد قدبين إن الميزان كأنت جقابين ميزان كو معها وحا لو ميزامو على بها لك لقدنا يا بضاعات كما ميزان كو كبل هذه أركان تعامل مع الناس ميزان بوكا جبها هي إن هذا هتقف هذا إذا ضغيان كحد قدب كنا ما فيعنو إن إكستريميسمي إن حق جير نقطة دينا أنتركتيال لماذا مانكا دينا ريليجيون جديدة dhinaca siyaasadda politicalka iyo dhinaca tribalkii qabaalikaba inaad noqotid qof xag jir ah intaba lama rabo maxaa yeelay xag jirnimadu waa indhala-aan weye qofku waa inuu miisaan yeesho weeyaan markaas taasina waa arrinta aad jecelahay inaad ku furfurto oo waxaan u baahannahay miisaan baan u baahannahay arrintaas waxay inagu qasbaysaa si aan miisaan u yeelanno laba arrimood inaan isha ku hayno si aan mawduuca u galno degdega arrinta koowaad waxa weeye shumuuliyatu lqiraa'a marka aan wax akhrinayno inaan meel un akhrin meel walba aan akhrino soomaalida waxaan rabaa dadka afka soomaaliga ku hadla meel kastaad ku nooshihiin saddex arrimood inaad ilaashataan kow inaad marka aad wax akhrinayso matalan farmaajaad jeceshahay inaad wax ka akhrido farmaajo wuxuu sameeyey baad inaad wax ka akhrido madaxweynaha jeceshahay waxa isla markaa la rabaa inaad akhridid farmaajo wa'ayo farmaajo siduu wax u soo dhigtay farmaajo siduu u fikiraa farmaajo markuu qaraar qaadanayo siduu u qaataa qaraarka iyaa ta'siiriya marka uu qaadanayo iyaa maaragtay la wadaaga inaad eegtid maaragtay farmaajo aragti ahaan muxuu qab waxaas oo dhan dhinaca kale markaad akhrinaysidna sidaa inaad u akhridid inaad ahaatid qof shaamil qiraa'adiisu oonan qofka
isaga oo mujarrada ma jiro qof maaragtay waxba aan ahayn oo keligii meel socda ma jiro qof walba wuxuu yahay meel buu ka yimaadaa bi'a siyaasi uu leeyahay environment political ah intellectual ah yaa ta'siiriya qof wal oo adduunkan maanta aanu ku nool lahay ku nool idan waxaanu imaanaa ikhwaani fillah waxa weeyaan inaan shumuuliyaddaa yeelano markaan wax akhrino arrinta labaadina waxa weeyaan akhristeennu inay noqoto mid isku dayaysa in ay ka fogaato inay dadka bini aadanka ah attack personal ku qaadato shakhsigan isaga aad ishaysaan amba aad ka soo horjeedid fikirkiisa inaad caydid xaq uma lihid laakiin waxaad xaq u leedahay ceebaha uu leeyahay inaad dibadda soo dhigtid haddaad adigu tahay ninka gabadha ku mucaarada laakiin aragtidu waxay sheegaysaa inaad noqotid qof markaad akhris samaynaysid muxallil ah oo analysis siyaasiya samaynaya idan markaan intaas ka imaado waxa weeyaan ikhwaani fillah arrintan dhacday waxaan ka eegaynaa ta horaan ku horeynaa oo ah soomaaliya waxaa ka dhacay soomaaliya walaalayaal waxaa ka dhacay arrin weyn oo culus baa ka dhacday arrinta weyn ee culus waxa weeye gabadha yar ee ikraam la yidhaahdo oo gabadh da'yara oo ka shaqaynaysay wakaaladda warbaahinta wakaaladda waxaan jeedaa sirta ee sirdoonka mukhaabaraadka dowladda soomaaliya ka shaqaynaysay shaqadeeduna ahayd shaqo caadi ah oo ah dhinaca technica intelligence-ka sida wax loo qoro wax loo faafiyo waxaa ka shaqaynaysay in la dilay gabadhii amba la waayey gabadhii raad lagama hayo intaba waad isticmaali kartaa waa la dilay limaada lianno lama arkayo inay nooshahay waxaad isticmaali kartaa gabadha waa la waayey lianna lama arkayo meelay ku nooshahay waxaad isticmaali kartaa gabadha raadkeegii lama hayo raadkeegii meel uu ku maqan yahay wixii ugu dambaysay waa la hubaa laakiin wixii waqtigaa ka dambeeyey raadkeegii lama hayo idan waxa weeyaan ikhtifaa'uha way qarsoon tahay gabadhii asarkii iyo raadkeegiina waa baaba'san yahay arrimaha markay dhacaan sidee baa wax loo taxliiliyaa waxa weeye waxaa meesha yaalla macluumaad amba information ay kala isticmaalayaan dadka iska soo horjeeda informationka hore waxaa isticmaalaya waxa weeye dadka dowladda ka soo horjeeda waxay leeyihiin wakaaladda sirdoonka ay gabadhani ka shaqaynaysay iyaa gabadha ka takhallustay meel kale ma sheegayaan iyagu waxay akhrinayaan gabadha waxaa ka takhallustay wakaaladda ay ka shaqaynaysay basamaadkii lagu garanayo gacmihii lagu arkayay arrintaasina way muuqataa bay leeyihin taasi waa akhriska koowaad weeye akhriska labaad waa akhriska kuwa ka soo horjeeda arrintaas oo ah dowladda iyo wixii hareeriheega madaxweynaha jooga iyakuna waxay leeyihiin arrintaasi waa lagu daba jiraa weli wakaaladda wararkuna way keeni doontaa waxayna u keeni doontaa meesha loo yaqaano majliska amba guddiga maaragtay amniga qaranka iyo u keeni doontaa taasi waa midaas weyn oo weli waa macluumaadkii baa la ururinayaa arrintaasi waa macluumaad ay sheegeen laba qaar waxay leegayaan dadka loo yaqaano popularismiga ee dowladda jecel ee shacbiga ah inay gabadhaas la afduubay oo ay keeniyaba jirtaba suurtagala oo afduub ay ku maqan tahay maya in gabadha la dilay oo ay dileen ururka maaragtay indhaha xidha ee shabaab ee mutatarifka ah ee xagjirka ah yaa gabadha siduu u leyn jiray haldoorka soomaaliyeed gabadhaana uga takhallusay idan halkan iyadana waxaan ku haynaa saddex aragti oo ka soo horjeeda qiraa'ada dowladdu ay samaysay oo ah lagjar laga soo jeediyo dhinaca xukuumadda iyo saddex lagjar qaar kalena waan maqlay oo laga soo jeediyey dhinaca maxaan ku idhahdaa mucaaradka idan horteenna waxaa yaalla akhristan baa inoo taalla gabadhii ikraam way maqan tahay way noolaan kartaa nisba yar waana la dilay malab fara badan wuxuu sheegayaa in gabadhaasi la dilay yaa dilay waan ka hadli doonaa sideen u baari karnaa baan ka hadli doonaa su-aasha labaad waxa weeyaan ikhwaanii walaalayaal akhawaatii hablaha iyo ragga walaalahayow waxaan ka hadlaynaa waxa weeye iyay maslaxadii ugu jirtaa gabadhan in la dilo marka la baaraya masaa'isha caynkana waxaa la baaraa iyay maslaxadii ugu jirtaa gabadhan
in la dilo. su-aashan anu waxaan ugu degdegi waaya markii ugu horeysa in badan la ii soo qoray waxa weeye waa inaan wax baadho weyaan. marka waxaan baadhaya ma aha anigu wixii ma jooga bii'adii, laakiin waxaan baadhaya aqoontiiba baadhaya, macluumaadkiiba ay ururaya. arrinta saddexaad waxa weeye kuwa ay maslaxadi ugu jirto markay tallaabadaa qaadaan ma'aalaadka ka dhalanaya, marka ay dhibaatooyin ka dhalanaya ma xambaari karaan oo maxaa ka suurta gelinaya hadday matalan dowladdu disho sida la sheegayo ay wakaaladani disho. haddaan taa rajaxno waxaa dhalanaya natiijadan dhalatay ee gilgilka ku keentay xukuumadda Soomaaliya ma laga sii fikiray? haddii aynan iyaga ahayn kuwa kale ee dili kara may sii taxliiliyeen marka ay dilaan meesha ay qadiyadda marinayaan iyo waxay u soo hoyn doonto ee guule ah. marka waxaa laga fikiraya waxa weeye siyaasadda marka la akhrinayo oo mawduucyada sidana la akhrinayo waxay inooga baahan tahay arrimaha noocaasa iyo su'aalaha sidaasa in aan darxino. okay, si aan ugu sii soconno horay waxa weeyaan walaalayaal, ikraam waa inan yar, waa da'yar tahay, 30 ma buuxsamin, aad bay u da'yar tahay, waa aqoonyahan wax ka baratay dhinaca teknolojiga computerkiiska computer science wax ka baratay, macluumaadka sida loo xereeyo iyo taqaanaa. waxa weeyaan waxayna ka shaqaysaa wakaaladaas, waa wakaaladda sirdoonka, muddo dheerna way ka soo shaqaysay. okay, gabadha markaasi waa da'deedii waan aragnaa, aqoonteediina waan aragnaa, meesha ay ka shaqaysana waan aragnaa, reeraha ay ka soo jeedana Soomaalidu way sheegeen, anugu inaan ku laamo uma baahno. waxaas oo dhan wuxuu ina tusay in aan su'aalaha imika aan gudagalno inaan ka jawaabno mawduuca aan u soconno. mawduuc markaa waxa weeyaan, yaa gabadhan ikraam dilay, yaa dili kara, yaa ka muhiimsan yaa dilay, yaa dili kara. taxliil baa loo baahan yahay. waxa inoo hor yaalla 4 qolo oo qolo walba ay ku leedahay dilka ikraam dan iyo maslaxad ay ka leedahay. ilaahay u naxariista gabadha yar tabaaraka wa tacaala, ilaahay jannatul firdowsna ha geeyo hadday dhimatay weeyaan oo shahiidad ilaahay weeyaan. laakiin su'aashu waxa weeye yaa dili kara. hada su'aalun muhimun jiddan. okay, su'aasha yaa dili kara maxaa ka abuurmaya? iyay maslaxadi ugu jirtaa inuu dilo gabadha yar. so su'aal kasii adagtii hore maaha. su'aasha waxaa kasii adkaanaysa maxaaba loo diliba, maxay tahay shakhsiyadda ay tahay maxay tahay? hal la dile inan yar maxaa loo dili? waa su'aal yaduna. su'aalahani waxay inoo furayaan, wuxuu idhahdaa mufakirkii weynaaye cali shariicati, man laa yas'al fahuwa xayawaan. qofka aan wax isweydiini waa xayawaan. su'aashu waa miftaaxulcilm. as'ilada mucaqadkiina waxay furfuraan waaqica mucaqadka ah. dad badan baan dhegaystay, asxaabaan nahay, qaar aan asxaab ahayn oon maqmaqlo, intuba analysis ma ay sameyneen, waxay sameeyeen mawaaqif siyaasiya. dadii waa mawqifka siyaasiga sheegeen. qofka nabad iyo nolol la jirana analysis biduuni taxliil, isagoon taxliilin buu mawqif leeyahay. ka kalayta ee dowladda ka soo horjeedana isagoonan taxliilin ayuu mawqif leeyahay. marka mawqifka waxaa ka horeeya xataa taxliil, xataa siyaasiga. ninka siyaasiga ee dowlad xakuma waa in loo keeno qaraar amniga iyo intelligence-ka iyo taxaaliishii aqoonyahanka iyo culummada inta lagu soo gudbiyo waa inaad akhridid kadibna aad hadashid weeye. laakiin haddaad marka horeba iska hadashid adiga oonan maaragtay waxaasoo dhan haysan, waxa loo yaqaano doonayaal macluumaad, waxa loo yaqaano information adoonan macluumaad hayn, waxa weeya waad iska hadlaysaa markaas. okay, arrintan marka haddaan oranaha ka hadalno ikhwaani fillah, su'aaliyaanu ka jawaabayna. waxaan leenahay gabadhan iyaa dili kara, iyana maslaxadii ugu jirta inuu dilo. 4 qolo. anigu analysis weeyaan, macluumaad nima siinaya. ha degdegin, hana oranin wuxuu yidhi wadaadkii Bashiir qoladaa baa dishay. anigu waxaan ku siinaya waxa weeyaan iyaa dili karaa.
kaasuun baana dilin qof kale ma dilin afartaa midkoodun baa dilay nin kale oo dibad uga yimid oo dilay ma jiro okay kow waxaa dili karaa wakaaladda ay u shaqayso oo loo yaqaano nisa ee sirdoonka oo uu madax ka yahay inanka dhallinyarada ah ee fahad yaasiin qoladaasi way dili kartaa maxay u dili kartaa iyada maxaa maslaxad ugu jira waan ka jawaabaynaa maxaa dhibaato ka soo gaadhayna waan ka jawaabaynaa yaa dili kara waxaa dili kara nisa okay su'aal baa imanaysa yaa kaloo dili kara waxaa dili kara ururka afka duubka ee loo yaqaano xarakatu shabaab ila socda maxay u dilayaan iyaku mantiqba male dilkoogu logic male qof kasti oo dowlad u shaqeeyaay waa dilaa waxyaalo kalena waa u dili karayaan oo aan sheegi doono laba weeye iyaa dili kara waxaa dili kara mucaaradka siyaasigii dowladda soomaaliya kasoo horjeeda si ay lakhbada u sameeyaan si ay jawigu u xumaado waxba iyakuna samayn karaan way dili karaan iyakuna way dili karaan qofku siyaasaddu maaha mu'asasa khayriya meel samafal ay fadhiyaan iyo ducaadi iyo wadaadda ay fadhiyaan wadaaddo badan oo hadlay waan maqlay u xadiisaya laakiin siyaasaddu inta badan meel lagu xadiisa maaha waa xataa qur'aanku siyaasadda kama xadiiso uu taxliiliya suuratu alqasas akhriya suuratu alracd akhriya suuratu naxli akhriya suuratu araxmaan akhriya suuradaha qur'aanka ee siyaasadda ka hadlay akhriya kulluhaa waxay samaynayaan taxliil siyaasiya waxay samaynayaan waa analysis arrintay furfurayaan tafkiik iyo tarkiib bay samaynayaan qur'aanku waa cajiib weeyaan ma aha waana maaha oo quraatay sida u fahmayaan mawcida lilmuttaqiin un maaha hudan baa ka horeysa hudanna bayaan baa ka horeeya qur'aanku waa sida hada bayaan linaas hudan oo mawcida marka bayaanku qur'aanku horta sameeyaa markuu wax bayaaniyo hanuun buu keenaa oo dadku u furaa meesha ka baxayaan markuu taa keenana waanuu yimaada waanadu waa marxad saddexaad weeye idan ikhwaani fi lislaam waxa weeyaan qolada saddexaad ee dili karaysa waxa weeyaan waa mucaaradka weeyaan waa saddex qolada afraad ee dili karaysa waa maxay waa sirdoon khaariji ah sirdoon rag sirdoon ah oo dibadda ah oo la wada lakhbada siyaasiya daakhiliya inay siyaasadda guduhu ay isku wareerto iyo wadaan ma dhici karaysa waan macnayn doonaa iyakana qoladaasi ayo quwadda dibadda dili karta waa saddex qolo iyadana sheegi doonaa idan halkan marka waxa inoo yaalla waxa weeyaan gabadhan ayaa dili karaya afar qolo ayna sheegeen waxaan ku bilaabay ururka nisa laba waxaan ku xigsiiyey ururka shabaab saddex waxaan ku xigsiiyey ururka la yidhaahdo maaragtay amba mucaaradka qolo ah amba laba qolo ah amba dad ah amba rag maaragtay weligoodba wax laaqi jiray oo camiiqa oo gunta yoola oo kuwan maaragtay mucaaradka la yaqaano ee madaxda ah aan ahayn oo kuwo kaleeta ah oo halka hoosta fadhiya oo raba inay wax laaqmaan oo hadday natiij la gaadho doorasho fiican wax fiican aan rabin afar waxaan idhi waa quwad dibadda ka imatay quwada dibadda oo saddexa oon iyo kala sheegi doono idan iyaa markaa dowladda soomaaliya nisa maxay u dili gabadhan maxaa ugu jira maslaxad inay disho nisa gabadha u shaqaysaaba maxay u dilaysaa horta waxaan eegaynaa sida guriga uga soo baxday waa kow waqtiga la soo saaray waa laba meeshii oo ay tagtay waa saddex waa la waayey waa afar waa qiraa'o okay macnay leedahay maya sidaalada kale oo badan oo dhan macnay leedahay ka ima waxaasoo macno ah waxaad u imataa imika macnaha ah maxaa ugu jira maslaxad inay nisa disho horta waxaad ogaatiin mukhaabaraadka ragga sirdoonka la dhahdo sirdoon haddaad maqashay kelmadda sirdoon waxa weeyaan waa intelligence imika waxaa dhahdaa waa mu'asasaadka intelligence maxay kalan tahay waxaa meesha la fadhiisiyaa dadka adduunka ugu shaydaansan ugu khatarsan ugu naxariis yar ugu maaragtay deganaan ugu aamus badan la arag la maqal raadkooga la arag yaa meesha fadhiya laakiin la arko uun la maqlo uun waxa ay sameeyeen su-aashu markaas waxa weeye anigu waxaan arkaa dadka mukhaabaraadka ee caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ee localka ee dhulkeenna ka jira waxay sameeyaan saddex arrimood marka ay qof ka takhalusayaan
eegsa wax looga takhaluso dadka qaar qofka way waalaan qofkii meesha ka shaqaynaya u waashaa anigu markaan dhalinyarada ahayn waxaan dhigan jirnay machad sacuudigu leeyahay waxaan markaa bilownay dacwad dowladuhu dacwad iyo wax walba way ku dhex jiraanoo way ikhtiraaqaan dhalinyaro yaroo nala soconayso laba ah oo ilaa imika aan ogahay mid waa dhintay yaa la qaaday mukhaabaraadkaa la qoray waa waktigaas sirdoon bay noqdeen kadibna waana lagu soo ceshay si ay nooga dhex shaqeeyaan labadiiba way ka dhigeen way waasheen markii dambe markii macluumaadkii laga shaqaystay muddo fara badan lagu shaqaystay waa waashay mid kubaddu nala ciyaar dhalinyaro uu dhintay midina waa nool yahay kolle maxbuu noqdaa kolle wax dadku way yaqaanaan laakiin uu wareeray dadkaas sida khaaska ah waxay uga shaqayn jireenna aniga shakhsiyan baa ahayd weliba ninkaa dambe ee ilaabika iska nool oo wareeray dowladuhu markaa maxay sameeyaan qofka ma dilaan marka qaarkood way waalaan kiniin baa la siini alaab baa la siini sharaab baa la siini u waalin yahay dadku waxay hebel u waashay qaar baa oranaya sirtuu guri jiro ducadii iyo habaarkii ummaddaa ku dhacday u waashay dhalinyaro fara badan oo jabuuti aan ku aqaano jidadka socotaa jirtoo waashay oo meesha ka shaqayn jireen marka waxa ugu horeeya ee lagu sameeyo waxa weeyaan qofka waa la waalaa kow mid labaad bay sameeyaan waxay sameeyaan alqatlu saabit qofka waa la dilaa laakiin waxaa loo dilaa si aamusa amba waxaa loo yaqaanaa alqatlu albatii qofka waa la dilaa waxaa loo dilaa isaga oo in la dilay aan la arkayn aamus baa lagu dilaa yacni uu bukoodaa uu jiroodaa dhakhtaraa la geeyaa weliba dowladdii disha way qaadaa dhakhtarada adduunka ugu weyn bay geysaa kadibna ninkaasi waa dhintaa marka dadkaasina habkaana waa loo dilaa waxaa dhahdaa alqatlu albatii baa dhahdaa amba alqatlu saamit midda saddexaad waxaa la sameeyaa alqatl hoo la dilaa laakiin waxaa loo sameeyaa dad dila waxay markaa dowladuhu sheegaan in la dilay hebel oo waxaa dilay jiha markaas taana waa lagu dhameeyaa malafka doosigana saas baa loo xidhaa amba faylkaasi su-aashaan isweydiinana waxa weeyaan adigu ma jiri doonta maalin aad ogaan doontid hebel dowladdaa dishay maxaanad u ogaanayn afrika iyo dalalka saddexaad ee adduunku faylasha sirta kama qaadaan dimuqraadiyiin maaha iminka maraykanku 20 sana markay dhammaataba fayl buu furaa uu yidhahdaa uu xidhnaa waa laga qaadaa qaarka si adagna marka generationkaas uu baabaa laga kor qaadaa dilkii kennedy weli lagama qaadin kolban yar baa la furaa laakiin iminka qaraxyadii ka dhacay maaragtay 11 sebtembar 20 sana ka soo wareegtay maaragtay waa laga dul qaaday 2021 waxa weeyaan sacuudiga dhibaato weyn baa ku socota lianna faylkii baa laga qaaday sirriyadii marka malafkii waa la furay idan halkaa waxaa ku jira waxa weeyaan afrika malafka ma furto dowladaha dimuqraadigu waqti bay qabtaan sirta la furi karo dadweynuhuna ogaan karaan adigu ma ogaan karta afrika markaa ta koowaad dowladuhu way dilaan dadka iyaga u shaqeeya sirdoonka ah maxay u dilaan laba shay bay u dilaan shayga koowaad u dilaan waxa weeyaan war buu bixiyey warka uu bixiyey baa muhiim ah khatar ah oo idinka takhalusaan laba waxay u dilaan wuxuu noqday qof laba wajiile ah duble wuxuu noqday maaragtay mukhaabaraad wuxuu noqday camiil musdawaj waxa loo yaqaan camaaladiisa shaqada uu ku jiro yaa laba waji yeelatay amba wuxuu u shaqeeyaa maalan gabadha ikraam allahu aclam amba waxay u shaqaysaa mukhaabaraadka ingiriiska siday qaar sheegeen mukhaabaraadka soomaaliya loo shaqaysaa mukhaabaraadka kenya mukhaabaraadka soomaaliya mukhaabaraadka shabaabka iyo mukhaabaraadka soomaaliya intaba way u shaqaysaa iyo qaranaya marka isdiwaajiyadan waa loo anu malihi way u shaqaysaa waa loo dilaa inta badan isdiwaajiyada waa loo bedilaa marka goormay dilaan dowladuhu mukhaabaraadku qof iyaga u shaqeeya taabay ku dilaan mid afraadna way sameeyaan saddexa hore maxay sameeyaan waxay sameeyaan qofkan in aan maaragtay la xidho ilaa abadiyan dowladaha dimuqraadiga way xidhaan abadi waa halkaa ku jira ikhfaa waa laga qariyaa dadka markay ogaadaan in lagu soo socdona way cageeyaan way ka baxsadaan waddankaas sidii ninkii maaragtay wikileakska lagu sameynayay ama sida ninkan imika maaragtay intelligence-ka khatarka ahaa ee ruushka maraykanka ee ruushka ku dhuumanaya ee asraar badan gacanta ku haya idan waxa weeyaan ikhwaani fillah waxaa loo baahan yahay markaas
دولة مديشة هيئة سردونكو مدلان ويدلان ببساطة قفك بني آدم مهمة وحكم مهم معلومات كبدا كوايو هذا أريك الله صعدا قفك بني آدم كي دولتها مهم وما مركا أي معلومات هاي معلوماتها كمهم سن معلوماته عم بورك أو هيو وحي كم مهم سن تهي إساقا ولذلك وحال برا سردونكا هدو معلومة هيو إنو لقو هدو لقي واير إنو يسدلو هدو يسدلو واير والو ديري دولا حوالي lagu baraya marka meesha u shaqo tagtid meeshu maaha meel lagu safaado lagu ciyaaro la iska tago shaqaale laga noqdo maaha waa meel qofka u shaqo tago uu og yahay natiijada shaqada ka dhalanaysa idan markaasi taasi waa marka maxaa maslaxad ugu jirta marka nisa inay disho mid laga soo qaado laba maslaxadood bay xaqiijinaysaa koow sir ay ogaatay inay baxayso way joojinaysaa labo waxay ogaatay ay ka gurtay sirar badan oo meelo kale ay ka helaysay markay ka dhamaysatayna way dilaysaa waa maslaxad weeye laakiin iyadoo hadday dishay ma faa'iidada dilkaa ku badan mise dhibaatada dilka ka soo gaaraysaa badan okay su-aasha waa muhiim hadday nisa dishay ma faa'iidada badan nisa ay ka gaadhay mise waxaa badan dhibaatada nisa ka soo gaadhay markaad isbarbar dhigtid labadan waxaa badan dhibaatada yaa ka badan wanaagga okay su-aashu waxa weeyaan dhibaatada ka soo gaadhay waa waxaa iminka ka dhalatay oo keentay aan sheegi doono dee fahmi yaasiin aan taxliilin doono shakhsiyadiisa iyo shaqadiisa iyo wax oo dhan labo dowladda madaxweynaha saddex kala fogaanshaha ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo sii camiiq noqotay afar iyo in ay malafkii amba faylkii doorashadu mugdi madow u sii galayo arrimahaas oo dhani maslaxad kuma jirto madaxweyne farmaajo iyo fahadba waxa ugu jirta waxaan ficin haddii ay uunan ogeyn madaxweynuhu oo fahad sameey wayna sameeyaan mukhaabaraadku marka qaarkood isagoo uunan la ogeyn ninka madaxa ah iyo wax badan iska sameey laana waxay noqdaan waxaa loo yaqaanaa faylka sirdoonka adduunka waxaa looga yaqaanaa الدولة الكبيرة تحت الدولة الكبرى دولة وين أو هوس فردة دولة وين دولة آد كوين أمضوا إلى هاي دولة وين هوس فردة ودولة مخابرات جارهان مركا أي مخابرات وكشغين يعني ودنا عن ديمقراط كهين سدا روكي نوكله وحي نقدان ماشى قرات ماشى أقول لفظ برس الدولة ده لأنه نيكا مدحة أدون صدحات حكومي وحكو شقيا أفراد موت إيه علمي ما كشكينا موت كو وحكو شقيا قيمين العقد وكو لبا وحكو شقيا شراء الولاءات دتك إن اللي يبسدوا لو يبسدوا وحيالك على بدل كراسي لصية معي صدح وحكو شقيا تخويف عبسين بوكو شقيا أفر وحكو شقيا معلومات نينكم مدحوين ما نقون كرو رئيس الوزراء ما نقون كرو هدونا نهرين معلومات جوكتا oo waliba uu ka helayo jihooyin kala duwan oo ku soo ururaya jiha isagoo samaystay jihadaasina ay u soo jilcinaysay macluumaadku kanayso idan macluumaadku waa muhiim u yihiin dowladaha oo dhan gaar ahaan madaxda caalamka saddexaad okay halka marka aan soconno waxaan ogaanaynaa ikhwaani fillah jihadaasi way dili kartaa gabadhaas way dishay aday ku taala ani ima taalaya wa hadalka yare ma la yacniga ani waxa yaala mumkin suurtagal weeye okay jihada labaad ee dishay waxaan oranay waa xarakatu shabaab way dili kartaa maxay u dili kartaa saddex arrimood daraadeed kow horta xarakatu shabaab dilka ma macnayso dilkeegu male mandiq logic male maxaa u dishay waa murtad mandiq waa kaas maxaa u dishay waa camiil wuxuu la shaqeeyaa gaalada maxaa u dishay waa khaa'in maxaa u dishay walaa walbaraa baan ku dilay qadiyad wax yaroo dhow oo fudud dhag waa lagu dhejinaya waa lagu dilaya fatwa la soo qaadanaya waa lagu dilaya waa la sharciyeysanaya marka iyaku qof dowladda u shaqeeya oo gabadh ah inay dilaan waa wax fudud weeye arrinta labaad ay u dili karaan inay ahayd yakna mukhaabaraat sirdoon bay u ahayd yakna xaggana sirdoon bay ka ahayd suurtagal weeye labadii sirdoon markay arrimaheegii dhammaysatay waxay u arkeen inay haddeeta gabadhan ay ka takhalusaan ama inay hawlo kale ugu yeedheen ay iga raali noqon tiraa dhici karaysa alla diliyada
marka taana ku dili karayaan arrinta saddexaad ay ku dili karayaan waxa weeyaan inay hawl u dhiibeen ka culus ay yidhahdeen hawshaa soo qabo intaba aynan ahayn ay diiday oo ay dilaan iyaguna way dili karaan sida ugu fududna u dili karaan marka iyadana in laga saaro idhahdo ma dili karaan shabaabku oo way ka cudur daarteen oo waxay yidhahdeen anaku ma dilin qofku maaragtay qabiya ma aha taasina waa taa weeyaan qolada saddexaad ee dili karta waa ayo waxaan oranay waa mucaaradku way dili karayaan mucaaradku waa saddex mucaaradka dowladda ku mucaaradka waa saddex murashaxiinta qolada loo yaqaano maaragtay guddiga amba meesha ay ku kulmaan murashaxiintu oo u badan dad iska civila oo madaniyiina waa mucaarad siyaasiyiina oo dowladda iyaku ka joogo qolo labaad waxaa jirta dowladaha mucaarad dowladeed baa jira oo maaragtay ay ka mid yihiin maxaan ku dhahdaa jubbaland ay ka mid yihiin puntland waxaas oo dhan waa mucaarad laakiin waa mucaarad dowlado leh oo awoodo leh oo xoog leh oo wax badan haysta iyaduna mucaarad saddexaad baa jira waxaa jira mucaarad hubaysan oo mucaarad qabyaaladaysan oo hubaysan baa jira oo ilkaha isku cuna oo dowladda ka soo horjeeda saddexdaasiba waa suurtagal bay noqonaysaa qaarkood inay dilaan qaarna inayna dilin okay maxaa maslaxad ugu jira inay dilaan waxaa ugu jira in laqbata siyaasiya sameeya inay siyaasaddu qasato qas siyaasadeed inuu dhaca qas siyaasadeed kow tiih in la galo dhamac siyaasadeed saddex khilaafaad siyaasiya camiiqa inay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ka dhex sameeyaan afar in ay fahad yaasiin ka soo saaraan meesha lianna fahad yaasiin wuxuu noqday raqam buu noqday lambar culus oo meesha fadhiya waxaas oo dhan waa loo samayn karaa in la gaadho ujeeddo siyaasadeed taasina waa arrinta saddexaad qolada afaraad dili karta waa maxay waxaan oranay waa quwad dibadeed maxaan ku macnaynay quwadda dibadeed arrinta aad ha layga fiirsado ha layla eegana quwadda dibadeed ee dili karta waayo waa saddex qolo kenya kow masar cajiib laba imaaraadka saddex waa ra'yigayga waa akhrisan akhrinayo kenya waxay leedahay ujeeddo siyaasadeed intaan waxa weeyaan laba meelood ra-iisul wasaaruhu uu tagay uuna ka soo laabmay ra-iisul wasaaruhu marka dowladda masaaridu waxay rabtaa bikulli maa uutiyat min quwa inay soomaaliya ku soo noqoto inay soomaaliya soo caga dhigato iyada oo etoobiya la dagaalamaysa labo niilkeyga difaacaysa saddex la dagaalamaysa islaamka loo yaqaano political islamistka islaamka siyaasiga afar soo ceshanaysa waxay u taqaanay dowladihii ay ku neefsan jirtay siyaasad ahaan oo masar iyo sudan iyo soomaaliya afrika markay wax ka dhanacsanayso inay kusoo noqotay doonaysaa sida uu ruushku inuu soo noqdo doonaysaa marka masar wayna taqaanaa mawduucyada caynkaasiya dadkii adeegsan karaysa way garanaysaa waa meelo dheer waxaan tageyno imaaraadka oo siyaasaddii ka soo ururaya laakiin raba inuunan inhizaam kaamil ayna ku dhicin saddex kenya oo rabta iyaduna in ay dhooqo sii dhex geliso madaxweynaha soomaaliya intuba masaalix bay ka yeelan karaan arrintan marka dilkan nisa gabadha ka shaqaynaysa ee ikraam taxliil la dhahdo waxa weeyaan waxaa dhici kara halkaas inay waxaasi ay ka dambeeyaan su-aashu haddaba waxa weeyaan ikhwaani fillah su-aasha muhiimkii waxa weeyaan inaanu imanno horta dad badan waxaan akhriyay ayaama dhoweyto jaraa'id ka soo baxa imaaraadka oo marka ay fahad yaasiin analisa saarayaan waxaad moodaa inay siday rabaan wax u macnaynayaan imaaraadku fahad yaasiin markay sheegayaan afar shay bay ku sheegaan taxliilka ay saaraan imaaraadku kullu akhbaartoodoo dhan macluumaadkoogoo dhan afar shay bay ku sheegaan fahad yaasiin kow waxay ku sheegaan salafi qadiim inuu ahaan jiray salafi ta'akhwana bacda dalik kadibna ikhwaan muslimiin noqday qatariyun hawiya inuu qatar u shaqeeyo waa saddexa arrinta afaraad ghaamid inuu yahay qof qarsoon oo la fahmi karin inuu yahay afartaa bay ku sheegaan okay fahad yaasiin inuu ictisaam ku jiray uu itixaad ka mid ahaa uu salafi yahay qof ka shakisan ma jira adduunka oo dhan wuu og yahay taas waa macluuma xaqiiqiya saadiqa daqiiqa taasi halkaa idhig labo
إنه إخوان نقضي ومعلومة كاذبة ومعلومة بينة قفك يقان أن أقون با وحا لو أخريا ما أون النقل قرضاوي وزيارتي قرضاوي معها شيخ إخوان المسلمين كن سقال بقول سقاشنكي يوشي قرضاوي كعذر دارتي إنه يهي نين إخوان المسلمين كميدا قرضاوي وحو نقضي شخصية عالمية أو أمد الإسلام كوردن أي أسمته أبوه إذن waxaa ziyaarta طالبان oo ikhwaanka aan wada socon waxaa ziyaarta salafiyada sacuudiga waxaa ziyaarta suufiyada waxaa ziyaarta kulla naas shiicada marka qofku inuu qardaawi ziyaarto kama dhigno inuu ikhwaan muslimiin marka ninkani fikir ikhwaan muslimiina ma qabo taasina waa khatar tahara waa sax talabaadna waa khatar inuu qatari الهوية yahay hawadiisu inay qatari tahay inuu jaziira ka shaqeeyey inuu shabakaad jaziira u shaqeeyey shaki kuma jiro inuu cilaaqo wanaagsan qatar la leeyahayna shaki kuma jiro markaas intaasina iyadana waan saxaynaa arrinta afraad oo ah waa qaamid waa nin qarsoon muu jiraa qof mukhaabaraad ah oo sirdoona oo qarsoonin oo cad oo waadixa ma jiro anigu jabuuti markaan joogay laba nin baan kala saaxiibaha oo marka qaarkood la kulmi jiray labada ninbaba midi aad buu u furfuran yahay laakiin furfurnaashiisu boqolkiiba 95 wuxuu kuu sheegay waa been shan baruna isku furfuray waa beena waa furfurnaasho iyo qasal faruuriya dusheeda midina waa dam min dhacas buu kuu soo eegaya saan buu kuu eegaya waa dam waxba kama helaysid waxaan u bixiyey kaydka ismaaciil cumar gilaal hadinka waa kayd asraarta oo dhan halkaa bay ku jirtaa idan qofka sirdoonka ah waa qaamid waa inuu qarsoonaado la fahmi waayo wayaan laakiin anigu laba shay baan ninkan saddex shay baan fahad yaasiin ma aqaano laakiin laba goor ma nolosheeda saranay labada goorna xashkan ku oranay xashkan markaa isagoo dariiq socon ku oranay wuu islaamay wuxuu yiri inaan ku wareystaan doonaya jaziira waan ku arkay mar labaad saama ku oranay saan buu yiri bas waas dhaafnay dib dambe meel aan ku arkay labada goorna waxay ahayd sacuudiga xashka wali waa maamino oo dadka ay jecel isagoo dhagax soo tuuraya annaan dhagax ka soo noqday ma ku labada garba mar kale nolosheedu ay kulantay ma jirto laakiin aan buuxdin marka aan ka eego aan kasab waxa laga qoray aan eego saddex shay bay ka soo baxday horta waa daki waa nin aqli badan weeyaan intelligent weeyaan waa nin maankiisu dadka kale uu wax ka dheeriyahay dadku hadday maaragtay shan dareen leeyihiin dareenka lixaad iyo ka toddobaad ma u qabaan marka arrintaasi waa muhiim meeshaa siduu u gaadhay way ku tusaysaa labo sida uu qofku iibinayo u iibin yaqaano way ku tusaysaa saddex sida uu cadowgiisa uga adkaan karana way ku tusaysaa saddexdaasiba inuu yahay qof daki jiddan ah waa saddex waa daki arrinta labaadi waxa weeye waa sameeye sida uu yidhi ninka maxaan ku dhahdaa maaragtay professorkan samatar ee jaamacadda maraykan ka dhiga wuxuu yidhi isagu siyaasadda ma rabe waa sameeyaha siyaasiga siyaasiyiintu sameeya isagu arrintaas maxay ku tusaysaa inuu gartay dowrka marka la eego waxaan la sameeyey iminka siyaasadda soomaaliya ayna bislayn ay 4.5 ay ku shaqaysan tahay 4.5 ay ku shaqaynayso oo reero waaweyn meesha ay yeesheen oo reerana waa yartiin waa laga yidhuunay wax yar ma jiree sidaa la isku waafaqay wuxuu gartay dowrku ciyaari karo dowrkiisi markaa wuxuu noqday an yasnaca siyaasi an yasnaca alxaakim walidaalika waxaa dhahdaa dadi waxay yaqaanaan sida madaxda loo sameeyo dadina waxay yaqaanaan sida madax loo noqdo dadina waxay yaqaanaan sida madaxda loo dumiyo dadina waxay yaqaanaan sida madaxda loo fashiliyo waxaasi wax la qoraya waxaa ka mid ah ninka la oran jiray abu muslim al-kharasaani wuxuu sameeyey dowladdii cabbaasiyada isagaa sameeyey dowladdii cabbaasiyada isagaa riday dowladdii amawiyada mu'asisu dowlad cabbaasiya waa abu muslim laakiin dowladdii baa dishay dowladdii uu sameeyey uu u dagaalamay uu kharaasaan u tagay uu meelaha ka soo ururiyey dad oo uu dowladdii amawiyada ee xoogga badnayd uu duniyey uu dowladdaa dhisay islaamkii xoogga badnayd dowladdii baa dishay marka halkaa waxaa kuugu jira akhi fi lislaam inaad ogaatid ood garatid in ay jiraan waxa loo yaqaano ragga caynkaasiya oo ah saanic adduwal saanic alandima saanic asiyaasi arrin saddexaad buu leeyahay ninkan wuxuu leeyahay shabaka calaaqaatiya laakiin taxta الطاولة
wuxuu samaystaa shabakad calaaqaadku waa xiriirka waana shabakad sida computerka ah laakiin miiska ma kor taallo miiska hoostiisa taallaa calaaqaadka uu leeyahoo dhani kulluhaa tadul cala annahu rajul ijtimaaci laakiin maaha arkay maaha waa isagoo la arkayn ayuu wixiisa samaysanayaa dadkaasi inta badan waa dadka noqda mukhaabaraadka weeyaan dadka noocaasiya waa dadka mukhaabaraadka sirdoonka noqda ayay ku jiraan marka ani saddexdaa shay baa ninkan waan ka arkaa ee la dhahdo Fahad Yaasiin okay inta haddaan ka soo durko waxaan u imanaynaa su-aashii kale ee ahayd khilaafkan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo salka ku haya Fahad Yaasiin eristiisa habka loo eriyo inaan dhowr kalmadood ka idhaahdo alxamdulillah dad fara badan waxay isku khilaafeen dad fara badan waxay isku khilaafeen dad fara badan oo Soomaaliyeed su'aal oranaysa muxuu maaragtay waxay isku khilaafeen dad fara badan su'aasha dhahaysa Farmaajo iyo Roble iyo Fahad Yaasiin khilaafka dhex yaala ma xaq buu u leeyahay inuu madaxweyne Farmaajo eryi karo inuu magacaabi karo mise Roble mise waxan aniga dastuurka Soomaaliya maartay qabyaha ah maan akhrin waanan ogahay inuu waxaasi ku dhigan yahay laakiin waxaan akhriyey كل الدساتير الكونية كل العالم وحشاقيا مدحوينه إنه مقعابه إرينا نينكا مخابراتك أوسرية قارهان مخابراتك مركزية إيه الدولة ده صدح صبو درادي صبتو كوبادي وحوي مقعابنتا دولدو ما كان مقعابي دولد مدح ما كان مقعابي والزيرة ما كان مقعابي ودنا ده قار waxay ku daraan banka dhexe waa kow laba waxay ku daraan banka dhexe kow laba waxay ku daraan mukhaabaraadka ninka xukuma saddex waxay ku daraan oo muhiim ah dhinacaasina ninka hadayna jirin wasaaradda warbaahintu ninka warbaahinta dowladda u haynaya amba afayeenka intaa baa la magacaabaa dowladuhu saa u magacaabaan maxay saa ugu magacaabaan waxay saa ugu magacaabaan madaxweynuhu muxuu saa u sameeyaa madaxweynuhu haddii waddanku yahay tan waa sheegi doonaaye meesha Soomaaliya ka qasantaa sheegi doonaaye qasantaa waxa keenaya marka hataa intaanu iman madaxweynuhu marka wuxuu sameynayaa wasiirada qaar isagaas kale marka hataa nidaamku yahay nidaam xukuumi wasaaradda gudaha iyo dibadda iyo maaliyadda iyo amniga isagaas kale amnigu marka waa maxay waa mukhaabaraadka weeyaan marka mukhaabaraadka ninka xukuma magacaabintiisa iyo eristiisa madaxweynahaas kale ama madaxweyne ku meel gaar ah ama madaxweyne shaqadu ka dhamaatay ama madaxweyne sii jiray waxa dad madaxweynahaas kale arinta labaad ee uu ku leeyahay waxa weeyaan mowqic waa siyaadi mowqic khadami maaha service maaha meel laga shaqeeyo ma service maaha mowqicu waa siyaadi waa dowladdii sare weeyaan marka haddii kul siyaadi tahay waxa iskale madaxweynaha leh markii dowladdu tahay dowlad madaxweyne leh ama boqorka leh arinta saddexaad waa maxay warka uu soo ururiyo ninkani mukhaabaraadka iyo kooxda la shaqeysay warka subax wal markuu waagu bariyo waxa ugu horeeyo madaxweynuhu kaafeega ku cabashaha ugu horeey quraca waa macluumaadkii informationkii laga soo ururiyay ee sirdoonku ururiyeen iyo akhriya qabla jamiica الناس inta loo geyn la ra'iisul wasaare wala wasiiro ma helaan isaga helaya iyo guddiga loo yaqaano guddiga amniga saawiya system marka taas khilaafka ka taagan oo waxaan waa service waa madani oo wasaaraha madaxweynaha leh ma cilmiyeysno haddaan cilmiyeeno madaxweynaha iskale laakiin arinta Soomaaliya way qasan tahay waxa qasaya saddex arrimood weyn kow horta waxa qasaya dastuurka Soomaaliya wuxuu la mid yahay dastuurka Tunis imika dhibaatada ka keenay Tunis waa dastuur isku khalday ra'iisul wasaarenimada iyo madaxtinimada iyo gobolada waxa dhan ba isku laaqay weeyaan oonan kala waa dastuurkani maartay qabyada ayaa ka dhigay maamulka Soomaaliya qabyo marka maamulku uu qabyaysan yahay waxba in lagu macnaan dastuurka soo buuleeyahay rag culimo iska dhigay waan ka oqayna
وروح وقبيو وضخنا وقبيو سيهي دولتنا قبيو سنتها وحن بقى قبيو خدايا وحانا إلا عدايو مهم بيتاسي dadku ay u kala socdaan arinta saddexaad oo maartay inaan meesha aan ka iraahdo ardoonay nataa'ijta ka dhalanaysa wax weeyaan Soomaaliya doorasho ka soo socotay doorasho fiican baa ka soo socotay doorashadaasi way soo kubcaysay wayna soo bisleeysay wayna soo qangaaraysay laakiin maanta waxay ku dhacday doorashadaasi hog madow oo u baahan in laga saaro hoggaan madow ee ka saarka u baahan saddex qola un ba ka saari kara kow waxa ka saari kara kow madaxweynuhu laba shay buu ka saari karaa anu in badan ma madaxweynaha la taliya qofka uu sheega wuxuu ka saari karaa in uu mowqif adag uu qaato oo raganimo ay ku jirto oo dhado war waxaan ma si qasmi karaane hadda ani inacaysiin war salaamada dawanida waxba ila waxaan ma jannah cadaabna ma wuxuu dalku inuu socdo loo baahan yahay waa oran karaa waa dhibaato male waa facility inuu dhado war aniga haybadeeda sharti ila shanaya waan iska tagaya taa uu sameyn karaa labo intuu dadka u yeeray inuu dhahdo walaalahayo talo wanaagsan han qaadano ana axbana isadkeeni maartay sidaan uga baxnaa oo cilmiyeysan oo ahayn in fadhiyo la qaato madaxweynuhu sameyn karaa ra'iisul wasaaruhuna uu sameyn karaa isaguna sidoo uu soo sameeyay markii hore quyarnimada socodkii inuu sii wado oo arintaas isaguna uu ku sameyn karaa maya waxa sameyn karaa dadkana ilidka Soomaalida ah ee laba shay ku wareersan halkan waxaan maanta aan akhriyay Soomaaliya waxa dhex yaala oo ah hodantinimada Soomaaliya taala iyo faqriga iyo gaajada Soomaaliya taala adiga hodantinimada inta leegna waxba kama haysid gaajada Soomaaliya taalana 5 milyan ilaa 6 milyan oo ka kacsan dhulkooda oo gaajo hayso dawooyinka dhacay oo Soomaaliya lagu iibiyo cuntada burburta oo Soomaaliya lagu iibiyo gaajada oo ah meesha ugu sarreysa adduunka oo dhan tobanka dawladood ee adduunka ugu faqiirsan wax walba tobanka wadan ya tahay haddana waxa isku diriraysan kursi cidla oo meel yaala marka aqligu maanta kama waxa la doonayo waxa la rabaa in basiiro la yeesho laga guuro sheeka bareedan marka sidaa daraadeed qoladaasina way xalin kartaa haddii ay doonaan intuba haddii xal keeni waayaan shacabka Soomaaliya xalin karaya muxuu ku xalin karayaa mudaharaad in dibadda loo soo baxo la istaaga jidadka magaalada Xamar la istaaga jidadka magaalooyinka waaweyn oo dhan la dhaho waxaan hor jooga ha socdaan waxba way keenayaan xal oo ya xal keenaya xalkana kuwa keenaya la soo saaro oo dhalinyarada iyo aqoonyahanka la soo saaro oo dhado kuwaas wax xal noo doona revolution waa in lagu sameeyo lianna haddii la bedeli waayo systemka loo nool yahay maanta meesha ay wax galeen way ku soconaysaa saadiraadid waxaan jecelahay in aan arinta aan furfuro oo ka hadlo ayaan jeclaa arinta city maadaama ay tahay arin u baahan joogitaan iyana intan lamida waxaan ni ballan qaadayaa Britole inaan soo noqono si aan arinta city iyadana aan uga hadalno si idoo ballaaran oo quruxsan oo iyaduna Ethiopia oo dhan ku xidhan gobolkana ku xidhan buuq badan oo ka jiro runtana wax badan aan farta ku fiiqi doono intaas baa inaga tagaya caawa intaan dib isku soo noqonayna waxaan ilaahay sida ay nabadgeliyo dhageysiga dhageysatay waa ku mahadsantihiin جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته